رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu inoo sheegay kelmad qofkii 100 jeer oo keli ay yiraahdaay 100 jeer oo keliya hadda waa 100 keliya qofkii yiraahdaay uu heli doona ajir u dhigma xoreynta iyo qorfurida 10 adoon waxa isagoo micnaha 10 adoon xoreey oo kale ajirkii qofkaasi la helaya waxa loo qori doonaa 100 ajir oo waliba 100 dambi ba laga dhaafi doonaa sidoo kale waxay ka xijaabi doontaa kelmadaasi uu 100 jeer yiri shaydaanka maalinta oo dhan shaydaan ma ka celin doontaa mana jiro qof la iman kara wax ka ajar badan wixii uu la yimid qof sidaas oo kala yeela maahe micnaha qof 100 jeer isaguna kelmada dhaha ama ka badan dhaha mooyaan qof wax ka badan la iman karaay ma jiro kelmadaas waxa weeyaan laa ilaaha illa allah wahdahu la shariika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir qofkii kelmadda kaliya 100 jeer ku celceliya halkii maalinba 100 jeer ku celiya wuxuu heli doonaa ajir u dhigma xoreynta iyo qorfurida 10 adoon waxa loo qori doonaa 100 ajir oo waliba 100 dambi ba laga dhaafi doonaa Allahu akbar maxaa ka fiican 100 dambi laga dhaafo oo sameysay sidoo kale waxay ka xijaabi doontaa shaydaanka maalinta oo dhan mana jiro qof la iman kara wax ka ajar badan wixii uu la yimid qofka sidaas oo kala yeela mooyaane ama qof 100 jeer ka badan kelmadda dhaha mooyaane